السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال مeel kasta oo aad joogtaan kulanti wacan oo wanaagsan halkani waa SRT fi xaruntiisa dhexe magaalada Jigjiga oo aad si toos ah uga daawanaysaan barnaamijkan gaarka ah oo aan ku eegayno xaaladda guud ee dalka barnaamijka waxa marti noogu ah wasiirka xafiiska qorsheynta ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Sheekh Aadan dabcan intaan barnaamijka ku guda jirno waxa wax badan aanu falanqeyn doonaa xaaladda guud ee dalka iyo dabcan kooxda argagixisada TPLF muddadii ay ka arrimaysay guud ahaan dalka gaar ahaan deegaanka 27 sano la soo dhaafay saameyn intee leeg ay dhanka bulshada ay ku yeelatay haddii aan la dhinaca amniga dhinaca dhaqaalaha iyo dhinacyada kale ee kaabayaasha horumarka barnaamijkan uu ku eegi doonaa waxaa dabcan barnaamijka qayb ka noqon doona inta aan ku guda jirno wadamada reer galbeedka iyo danaha ka dambeeya oo ay kala yihiin dalka maadaama aan ognahay inay jiraan cadaadis badan oo ay saarayaan xukuumadda ee dalka ka harimisa uu hogaamiyo Dr. Abiy Ahmed aad waa santahay mudane ku soo dhaw barnaamijka wagaag ugu horintii intaan guda gelin barnaamijkan xaaladda dalka aan ku eegayno waxa rabaa dhawaan madaxweynaha dowladda deegaanka wuxuu soo magacaabay golaha xukuumadda dabcan waxaa ka mid ah xafiisyada la soo magacaabay xafiisaan hore uga mid ahayn marka loo fiisho xafiiska qorsheynta kale ka mid ah oo dabcan adigu aad tahay madax xafiiskan qorsheynta maxay tahay sababta loogu baahday in banusdikana mar labaad waan ku mahadcelinayaa maadaama aad fursadan aad siiseen waxaan rabaa su'aasha hadii aan guda galo inaan ka idhaahdo xilligan hadda lagu jiro waa xilli aynu ku naaloonaynay 3 sano ugu dambeysay nabad xilli loo jahaysay dhanka horumarka iyo kobcinta dhaqaalaha haddaba xukuumaddu markii ay aragtay dhibaatooyin badan oo xagga qorsheynta mashaariicda horumarineed ka jirta kamida dhalinta mashaariicda horumarineed iyo sidoo kale markii la garwaaqsaday in loo baahan yahay in kor loo qaado nidaamka cadcadaanta iyo ka maartay mira dhalinta iyo isla xisaabtanka waxa loo arkay inay laga maarmaan tahay hay'ad dawli ah ama xafiis dawli ah oo u taagan qorsheynta dabagalka iyo qiimeynta mashaariicda horumarineed ee guud ahaan deegaankeena laga fulinayo in la yagleelo oo la sameeyo marka xafiiskani runtii hadda ka hor jiri jiray sidan oo kale ayuu jiri jiray laakiin gadaal waxa la isku daray xafiiska maaliyadda kadib waxa weeye xafiiskan intii uu maaliyadda ku jiray waxa la ogaaday xagga qorsheynta gaabis badan inuu ka jiro marka iyada oo la darsayo gaabiskaasi wuxuu yahay iyada oo aqoon isweydaarsi laga soo qaadanayo deegaanada kale oo iyaguna leh komishinno ama xafiisyo qorsheyn iyadana lagu xisaabtamayo jihada guud horumarinta dhaqaalaha ee wadankan uu qaatay gaar ahaan xukuumadda Abiy Ahmed intii uu yimid oo ahmiyad gaar ah siisay nidaamka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha in la sii kobciyo taasoo keentay hadda in wasaarad madax bannaan la sameeyo heer federaalna laga sameeyo marka waxa weeye ahmiyadda guud ee wadanku uu siiyay in la helo nidaam qorsheyn ah oo ku saleysan baahida dhabta ee bulshadeena mudnaana kala siinaysa baahida iyada isla markaana ka shaqeynaysa nidaamka xaqsoorka mashaariicda horumarineed kor u qaadaysa dabagalka iyo kamira dhalinta mashaariicda horumarineed iyo waliba isla xisaabtanka qaabkii loo fuliyay ma aha qaabkii loogu talagalay ama loo qorsheeyay markii ugu horeysay maxaa caqabado oo jirta dhaliilihii geedi socodkii fulinta mashaariicdu maxay ahaayeen maxaa laga baran karaa in iyadana la ogaado ayaa loo baahan yahay ta kale waxa laga maarmaan in la helo xog dhab ah oo dhaqan dhaqaale oo ku saabsan xaaladda wadankeena iyo gaar ahaan xaaladda deegaankeena marka xafiiskani wuxuu qayb weyn ka qaadan doonaa sidii loo heli lahaa daraasado iyo cilmi baaris ku saabsan xaaladda dhaqan dhaqaale xaaladda kheyraadka wadankeena sidoo kale geedi socodka horumarineed ee deegaankeena marka daraasadahaas waxay gashi u noqonayaan qorshe walba oo la sameynayo marka si guud hadii aan soo duuduubo waxa weeye wax walba ayba hadii qorshihiisu wanaagsan yahay oo qorshe laga duulay macluumaad dhab ah iyo xogta dhabta ee deegaankeena ka jirta hadii uu yahay hadii qorshahaasi sidii loogu talagalay loo fuliyo waxa hubaal ah in laga midho dhalinayo marka waxa weeye
jihadaas xukuumaddu ay qaadatay xafiiskana shaqadaas uu ka qaban doonaa. waxaan aaminsanahay haddii uu taabagala xafiiskani in wax badan laga qaban doono nidaamka cadcadaanta iyo isla xisaabtanka ku aadan horumarinta dhaqaalaha deegaankeena. magartay tusaale waxaan ognahay xukuumadda in qorshe 100 maalmood la yiraahdo jiro. qorshaha 100 maalmood xafiiskiina maxaa qabsama? waa run dhowaan golaha fulintu wuxuu shirkii goday ku ansixiyey qorshaha 100 maalmood ee xafiisyada heer deegaan. qorshahaasi wuxuu si gaara uu maaragtay ahmiyad gaara u saarayay shaqooyinka baahida gaarka ah loo sii qabo ee xafiisyada u qorshaysnaa, iyadoo dee sanadkan shaqooyin badan xafiisyadu ay lahaayeen, laakiin haddana kuwii ugu sii ahmiyadda badnaa ee ugu sii mudnaanta badnaa ayaa la soo xulay. marka xafiis walba wuxuu soo gudbiyey 100 maalmood waxa uu isleeyahay waad qaban kartaa oo bulshada waxtar buu yahay. marka qorshahaas waa la ansixiyey. haddana xafiisyada kala gedisan waxay ku jiraan fulinta iyo maaragtay kaniib keenida qorshaha 100 maalmood. annaguna waxaan dhowaan samayn doonaa kormeer guud oo deegaanka oo dhan ah oo aan ku xaqiijinayno in qorshihii 100 maalmood si loogu talagalay uu fulay. bulshadana waa la wadaagi doonaa, xukuumaddana waa la wadaagi doonaa insha Allah. inkastoo aan barnaamijyo kale aan rabo inaan gudagalo, laakiin su-aasha ugu dambaysa aan ka weydiin doono xafiiskaada waxay tahay for future-ka ama mustaqbalka muxuu yahay fishinka xafiiskeena u yaala? xafiiskanagu waxa weeye in la helo fishinka ugu weyn waa in la helo qorshe ku salaysan daraasado dhab ah oo lagu tiirsanaan karo oo wax ka bedeli kara baahida bulshada, iyadoo maaragtay la isticmaalayo xoogeena dhaqaale iyo kheyraadkeena, lalana kaashanaya cid walba oo maaragtay inagu garab istaagaysa jihooyinkeenna siyaasadeed ee mustaqbalka lagu horumarinayo deegaankeena. aad umaasan tahay mudane. waxaan rabaa haddii aan intaas uga gudbo, waxaan ognahay dalka wuxuu ku jira xaalad howlgalla ayaa socda oo hormud u yahay ra-iisul wasaaraha dalka, lagaga soo horjeedo kooxdan argagixisada ah ee TPLF. waan ognahay muddo dheer waddanka ka arimaneysay saameynta ay ku yeelatay dalkan. aan ognahay howlgalkaasi sida u aragtaa? horta dee runtii waynu ka wada dhergsannahay horta xisbiga TPLF wuxuu yahay. TPLF xisbi ahaan waxaa la aasaasay 1975. xilliga iyada waxa weeye iyagu waxay sheegayeen inay u taagan yihiin sidii ay shacabkooda u matali lahaayeen ama ay xuquuqda ay markaasi ka sheeganayeen in ay santarka kaga maqanta ay u raadsan lahaayeen. laakiin say doontaba ha noqoto, iyagoo jabhada oo ay iskaashanayaan jabhadii kale ee maaragtay Eritrea iyaduna matalaysay, waxay markii dambe gacanta ku dhigeen hogaaminta waddankan 27 sano ee ay waddankan ka talinayeen TPLF iyo gaashaanbuurtii EPRDF ee iyagu hormoodka u ahaayeen. waxaa ka dhacay deegaankeenna iyo guud ahaan waddanka iyo geeska Afrikaba dhibaatooyin badan iyo tacdiyo badan oo aan la soo koobi karin. gaar ahaan deegaankeenna 27 sano TPLF waxay u geysatay waxyeelo aad iyo aad u ballaaran. waxa weeye waxaa la taarget gareeyay qiyamkeennii iyo jiritaankeenii iyo maaragtay dhaqankeennii iyo diinteennii, iyada oo ummadda Soomaaliyeed ee deegaankan ku dhaqan mar walba loogu xisaabtamayay inay yihiin dad second class ah. xilliga iyada ah waxa weeye waxaan ka wada dhergsannahay waxa la inagula dagaalamayay inuu ahaa package ama xidhmo isku wada socota oo aan kala hadhayn. dhan tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha oo baahsan oo kuwii ugu daraad maaragtay deegaanada Ethiopia ay ka fuliyeen kuwii ugu daraa baa laga fuliyay deegaanka Soomaalida. waa dhanka kale waxa weeye package-ka waxaa qayb ka ahaa in isir ahaan dadka Soomaalida ah loo tirtiro, in kheyraadkeena la dhaco. wasaad ogsoontahay hadda maanta kheyraadka deegaankeena lagu sheego baaritaanka inta badan lagu hayay shidaalka, ceelal badan oo la sahamiyay magacyo TPLF raggii hogaaminta u ahaaba ayaa lagu qoray. heshiisyada la gelayay waqtiga iyada waxay ahaayeen kuwo qarsoon oo xubnihii markaasi ka faa'iidayay dhiigga shacabka Soomaaliyeed ay hormood u ahaayeen ayaa la gelayay. cid ogaayina ma aysan jirin. hadda maanta haddaad tagto ceelasha maaragtay laga qoday
kaaluub iyo agaarkeeda waxaad arkaysaa ceelal loogu magac daray rag ka mid a saraakiishii kan tafaraa la yidhaahaa kan gadaajo baa la yidhaahaa kan maxay baa la yidhaahaa baa hantida ummadda soomaaliyeed iyo khayraadkeenna nimanka ku dhaadaya mustaqbalka xataa fog inay maaragtay iyagu ay intifaacsadaan ummadda soomaaliyeedna lagu duudsiiyo ayay ahaayeen. dhanka kale TPLF waxay sameeyeen bahdil aad iyo aad u ballaaran bay sameeyeen oo bulshadeena ay ku sameeyeen. Package-ka waxaa ka mid ahaa dhaqankeena in la bedelo. Package-ka waxaa ka mid ahaa in maaragtay qiyamka Soomaaliyeed ama social fabric in la bedelo. waxyaabo badan oo ummadda Soomaaliyeed waagii hore xukuumadihii hore ee ka horeeyay ayna ku sameyn oo talax tag ah oo fara badan bay ku sameeyeen. waxyaabahaas waxay ku noqdeen urku taalo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. haddii aan intaa ka gudbo geeska Afrika waxa weeye muddadii TPLF ay joogtay waan ogsoonahay dhibaatada ay ku hayeen wadamada jaarka gaar ahaan wadanka aynu walaalaha nahay maaragtay Soomaaliya. soo kale waxaan ogsoonahay dhibaatooyinkii ay ka sameynayeen maaragtay geeska Afrika guud ahaan saameyntii ay ku lahaayeen siyaasadaha gurracan deegaanada kale ee aan jaarka nahay. marka dhibaatooyinkaas oo dhan waxay kuu sheegayaan xilliga 27 sano ay ka talinayeen TPLF wadanka Itoobiya inay xaalad madow oo mugdi ah iyo dhibaatooyin raad madow ku noqday siyaasadda dalka Itoobiya guud ahaan geeska Afrikaba inuu xilligaasi ahaa. marka nimankii nooca ahaa markii isbedelku uu yimid maadaama ay la qabsadeen in ay muquunis iyo bahdil iyo maaragtay duudsi shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka guud ee Itoobiyaba ay ku naaloodaan ay la qabsadeen waxa iyagu u cuntami weyday isbedelkii dhacay. waxa u cuntami weyday inay maaragtay ay u hoggaansamaan nabadda iyo xasiloonida iyo wax wada qabsiga iyo isu imaatinka shucuubta Itoobiya oo ku salaysan nidaam dimuqraadi iyo federalism oo ku salaysan aan wada tashan oo ku salaysan dad siman aan noqon wadan aan wada leenahay aan dhisano. laakiin wadan dad kooban iyo ashxaas kooban oo dano kooban lihi ay hagaan ninadani uguma jirto. waxay dani ugu jirtaa annaga shucuubta oo dhan ay ugu jirtaa wadan aan sharaf iyo qiyam iyo qiimo aan ku dhexleenahay wadan taladiisa aan qayb ka nahay. waxay sharaf inoogu jirtaa wadan aan ku badbaadeen oo aan lagu beegsanayn oo aan xuquuqdanada lagu duusiin. waxay dani inoogu jirtaa in aan noqono dad resource-gooda iyo khayraadkooda ka faa'iideysigiisa qayb ku ah looga dambeeyo lagu xurmeeyo. marka taas iyaga uma aysan cuntamin. marka waxay door bideen jihadii maadaama iyagu si xisbi ahaana luqadda kaliyaata ay fahmaan ay tahay luqadda kaliyaata ay fahmaan waxa weeye waa in ama fakarkooda la qaato oo haddii fakarkooda la qaadan waayaan ay dagaalamaan oo ay xoog iyo muquunis iyo dagaal ay ku raadiyaan. yacni negotiation iyo aan wada noolaani iyo aan wax wada qabsani iyo bal aan isu nimaadni iyo anna dan baan leeyahay adna dan baad leedahay waxaynu wada leenahay aan wada dhisana iyaga kama dhaadhacsana. marka waxa weeye iyagu inay mar walba noqdaan dulin guud oo wadankan kadi ku dul nool dadkoo dhan ay servants ama adooma ay u noqdaan bay rabaan. taasna Itoobiya way ka soo gudubtay majority level baa la maraya. waxa weeye ninna hadda arinta iyada ah maaragtay ma ogolaanayo ninna uma gegsanayo ninna hadda waqtigan xaadirka ah ma qaadanayo duruuftii iyo dhibaatooyinkii ay wadan ku soo hayeen. nin walba wuxuu hadda dadka wuxuu u taagan yahay xuquuqdiisa wuxuu raadinayaa sharaftiisa iyo haybadiisa. marka iyadoo haddana ay taasi tahay waxay si indhala-aana ay u galeen ama ay u bilaabeen dagaal ay kaga hor imanayaan isbedelka iyo horumarkii laga gaaray xagga reformka dowladda dhexe ee Abiy uu hogaaminayo ay waday. marka taasa waxay keentay in markii dambe wadanka ay khalkhal geliyaan amnigiisa ay khalkhal geliyaan dagaalo ay ku soo qaadaan deegaanada jaarka ah deegaanka Amxaarada iyo deegaanka Canfarta. marka xaaladaas ayuu hadda wadanku uu ku jiraa. howlgalkii u dambeeyay ra'iisul wasaaruhu hogaaminayay waxaan la soconaa in
meelo badan oo TPLF hore u sheegatay inay iyadu gacanta ay ku haysay iminka gacanta dowladda kusoo laabatay howlgalka sidee howlgalkaas kula muuqdaa iyo guulahaas wallahi horta anu ma yihi khabiir xagga militariga ma yihi oo kolley waa la iga aqoon badan yahay laakiin xogaha hadda aan hayno waxa weeye in horumar ballaaran laga gaadhay jiida hore ee dagaalka in deegaano gacantooda ku jiray oo dhulkii markii hore iyagu ay ku soo fideen in dib looga qabsaday waxyaalo badan oo xagga militariga ay gaadhay marka xaaladda TPLF aan ka hadlayno waxaan ognahay in wadamada caalamka ama reer galbeedka markaan eegno bilihii u dambeeyay ay xoogga saarayeen xagga media ha noqoto ama dabcan ha noqoto isticmaalada politicalka ereyada siyaasadda ama arrimaha siyaasadda la xiriira Ethiopia ay focus ka saarayeen Mareykanka ayaa hormuud u ah saan ognahay pressure badan ama cadaadis badan Ethiopia xaggeeda gaaraan xukuumadda ra'iisul wasaaruhu Abiy hogaaminayo ay saarneed maxay kula muuqataa isla kartaa danaha ka dambeeya reer galbeedka kaliya Ethiopia horta marka la yiraahdo political economy-ga wadan walba ayba dan siyaasadeed buu leeyahay qof wadan walba ayba wuxuu mudnaanta koobaad siinaya danaha siyaasadiisa laakiin say doontaba ha noqotee waxaan aaminsanahay qaabka hadda reer galbeedku wajahayaan shaqaaqooyinka Tigreegu ay ka wadaan ama TPLF ay ka wado wadanka Ethiopia qaabka ay u wajahayaan inuusan saxayn baan aaminsanahay sida caadiga waa lagu kala qaybsanaan karaa dadka qaarkood siyaasadaha reer galbeedka ee ku aadan wadamada dhibaatooyinka ka jiraan laba ay u kala saaraan qolo waxay yiraahdaan waa conspiratory macnaheedu waa siyaasad mardaba ku salaysan dadna waxay yiraahdaan waa siyaasad ku salaysan misreading yacni inay si khaldan u aqriyayaan duruufta iyo xaaladda shaqaaqooyinka jira inay si khaldan u aqriyayaan marka labadaba way dhici kartaa inay danahooda gaarka iyagoo door bidaya wadankan inay sii khalkhalgeliyaan xaaladiisa inay maanta ay u ololeeyaan ama ay buunbuuniyaan TPLF iyo roolka ay dagaalka ku leedahay isla markaana maaragtay hoos loo dhigo ama aan lagu xisaabtamin dowrka dawliga ah iyo kaalinta aan dawladdu ay ku leedahay mar walba arrimaha hadda socda waxa weeye waxaan u arkaa inaysan sax ahayn waxaad arkaysaa midiyaha reer galbeedka oo faafinaya waxyaabo aan munaasab ahayn waxaad arkaysaa iyaga oo aan xaqaa'iqa iyo maaragtay wadciga hadda jira aan si dhaba uga hadlaynin oo saxaafadoodu ay dhan u janjeedho waxaad arkaysaa tallaabooyin siyaasadeed oo wadankan dhaqaalihiisa curyaaminaya oo la qaadayo waxaad arkaysaa iyada oo la buunbuuninayo waxyaabaha ay allegationska ama ay sheegashooyinka ay sheeganayaan qolada TPLF-tu meeshana laga saarayo waxyaabaha maaragtay ay tacadiyada iyagu ay sameynayaan in laga hadlo marka dhammaan waxyaabahaasi waxay muujinayaan reer galbeedku inaysan wadamo badan oo reer galbeed iyo inaynan dhexdhexaad ka ahayn hadda waxa socda haddii ay qaabka hadda ay u wajahayaan ay sii wadaan xaaladda inay uga sii daraan mooyaane inaysan uga soo reynin waa gartay markaan eegno tusaale Mareykanka oo kaleeto waxyaabaha inta badan oo xoogga saarayay in TPLF dagaalkan howlgalka TPLF lagu hayo uu yahay howlgal dabcan sax ahayn qaabka ay u dhigayeen waxaan ognahay 27 sano oo wadankan ay maamuleysay TPLF oo ay wadankan haysta tacdiye badan baa ka dhacay gaar ahaan deegaanka Soomaalida markaan eegno meelaha tacdiyada ugu badan ka dhacay bay kamid ahayd in 27 sano urur maamulayay tacdiye badan intuu wadanka maamulayay ka jireen haddana iminka in dib loo taageero maxaan ku sabayn karnaa horta waa ayaan darreynteeda leeg weeye ninkii shalay ku dilayay ee ku barakicinayay ee xuquuqdaada duudsiyayay muxuu ahaayey dhaqankaaga iyo diintaada iyo akhlaaqdaada maaragtay ku soo duulay kuwii dadka kugu liitay hogaaminkaaga dhigay muxuu ahaayey siyaasadda guud ee wadanka looga talinayo kaa takooray oo yidhi dadka xoolo dhaqatadii
munaasab kuma aha goobaha go-aanada siyaasiga ama masiiriga ah ee wadankani leeyahay lagu gaaraya inay ka qayb qaataan ama ay fadhiyaan. waad ogtahay xilligii hore xisbiga EPRDF iyagu hormoodka u ahaayeen Soomaalidu kumaysan jirin qaybna kamayna ahayn. markii dambe waxaa la sameeyay wax la yiraahdo agaar. markii hore xataa ma aynaan tagi jirin goobaha lagu go'aaminayo siyaasadaha ina saameynaya, laakiin markii dambe agaarkii lodge wax la yidhi bahwadaag, iyagoo aan cod lahayn bay tagi jireen, way fadhiisan jireen hogaaminta markaasi matalaysa deegaanka Soomaalidu. marka nimankii nooca ahaa in maanta loo sacabatumo waa ayaan darnaynteeda la eg weeye. waxayna arrintaasi muujinaysaa ashkaasta kooban ee laga yaabo in iyagu dana gaara oo ay raad raacayaan ay jirto. hawlahaasi maaragtay hadda ku mashquulsan iyo dacayaadka noocaas ay fidinayaan inaysan ayna garna ahayn, inaysan munaasabna ayna ahayn, inay meel ka dhac ku tahay shacabka Soomaaliyeed, inay meel ka dhac ku tahay dadkii u soo halgamay, dhiigooda u soo daadiyay, muxuu ahaayay halgankii dheeraa ee TPLF laga soo galay, inay meel ka dhac ku tahay gabdhihii loo dhibaateeyay iyo hooyooyinkii ubadkooda ku waayay, xaaladii qalabsanayd iyo tacadiyadii cadownimada ku salaysnayd ee TPLF ay ka wadi deegaankeena. marka taa waxaan aaminsanahay inaynan munaasab ku ahayn xilliga hadda lagu jiro, wadciga wadanku ku jiro ama deegaankeenu ku jiro, in la helo dad Soomaaliyeed oo la TPLF baan taageerayna ama TPLF baa imaan doonta. midna ogow waxaan rabaa inaan xuso TPLF inay wadankan intay ku soo noqoto shalay toole roolkay ku lahayd mid la eg ay yeelato oo ay wadankan waan hogaaminaynaa tiraaho mid dhacaysa ma imaan doonto. haddii ay isku dayaan shacabka Soomaaliyeed marnaba ma ogolaan doono TPLF nidaam ay hogaaminayso inay sii hoos joogaan. wasiir waxaa jira dad aragtiyo badan oo dadka qaar ka imaanaya, tusaale arrimahan markaan eegno reer galbeedka inay siyaasadda ku aadan Ethiopia ila xiriirta arrimo dhaqaale marka loo fiiriyo xulafada Mareykanka horboodayo inta badan wuxuu toomayaa jeenaha oo aan ognahay xiriir soo jireen Ethiopia oo ka dhaxeeyo. ma ku salayn karnaa hawshan reer galbeedka danahan in dhaqaale la xiriirto oo wadamada Mareykanka jeenaha iyo Ethiopia xiriirka ka dhaxeeyo uu doonayo inuu kala dhantaalo? wadamadu saan markii horeba ka hadlay wadan walba ay wadan siyaasadeed iyo mid dhaqaale u leeyahay. inta badanna waxaa dhacda dhibaatooyinka horta dagaalada keenay waxay asal ahaan inta badan ku lug leeyihiin duruufaha iyo xaaladaha wadanka ka jira. laakiin duruufaha iyo xaaladaha iyadoo laga faa'iideysanayo ay wadamada reer galbeedku isku dayaan inay iyaguna dantooda ay ka gaadhaan. marka way dhici kartaa in dan dhaqaale ay jirto, way dhici kartaa dan siyaasadeed inay jirto, way dhici kartaa in lagaba yaabo iyagu inay si khalad u aqriyayaan xaaladaha hadda wadanku ku sugan yahay oo isleeyihiin wadanka badbaadiya, laakiin qaabka ay u marayaan uusan sax ahayn. deegaanka haddaan usoo laabto waxaan ognahay tacdiyo badan baa ka dhacay deegaanka 27 sano. tacdiyadu way dhinac kasta way lahaayeen. dhinaca dhaqaalaha haddii aan ku bilaabo maadaama waxaan wasiirka qorsheynta tahay, dhinaca dhaqaalaha saameyn intee leeg bay ku yeelatay baas dhigi kartaa 27 sano ee deegaankan TPLF ay ku hogaaminaysay? horta dhaqaale ahaan waxa weeye waa qayb ka mid ah curyaaminta bulshadan in la curyaamiyo loogu talagalay ayuu dhaqaaluhu qayb ka ah. muddadii TPLF ay wadankan hogaaminaysay resourciga ama miisaaniyadda loo soo qoondeeyo deegaanka Soomaalida inteeda badan iyagu dib u noqon jiray, ummadan loogu maadeeyay. waxay iska guran jireen saraakiisha ciidamada. waagii dambana waxay samaysteen shirkado iyagu ay leeyihiin ama dadka ehelkooda uu leeyahay oo si sharci darro ah loo siin jiray mashaariicda horumarineed. ganacsiga deegaankan iyadana waxa weeye waa la curyaami. waxa weeye xuduud ballaaran baan la leenahay Soomaaliya, xuduud baan la leenahay Djibouti, xuduud baan la leenahay muxuu ahaayay Kenya. saraakiishii Tigreegu waxay xuduudaha ka soo gudbin jireen
ma taqaanaa muxuu ahaayey ganacsi aad iyo aad u ballaaran iyagu iska leeyihiin, dadka kalena waa laga go'doomin jiray, looma ogolayn. dadka shacabka ah ee Soomaaliyeed ee xoolahooda dhulka xuduudda ah ku raacanaya ayaa la oran jiray marka qaarkood waa contraband oo la iska guranay. waad ogtahay oo dadka xoolo dhaqatada iyagu xuduud ma laha, biyihiiyo baadka inta badan la socda. waxaa laga yaabaa xuduudaha caadiga ee internationalka inay gudbaan. adduunkan hadda way ka jirtaa, meel walba xoolo dhaqata ay leedahay. dee nina dadka xoolo dhaqatada ah socodkooda ay ku raadraacayaan biyihiiyo baadka nina ma joojiyo. iska daa wax kale dadkaas nooc walba u noolaan hayaan oo noloshooda ay ka soo saaranayaan waa lagala dagaalamhayay, hantidoodana waa lala wareegahayay. intaa marka laga tago dhinaca dhaqaalaha, dee waddan baan ka tirsannahay, kamaanaan heli jirin mudnaantii loogu talagalay inaan dhaqaalaha ku helno. hadday ganacsi noqoto, hadday maalgelin noqoto, hadday industrial parkiga noqoto, hadday mataqaanaa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ay noqoto. dhammaan 27kii sano ee ugu dambeeyey deegaanka ugu liita dhanka horumarinta dhaqaalaha deegaanka Soomaalidu ah. deegaanka ugu liita markaad barbar dhigto hadda iyagoo 2 milyan ah, waqtiga iyagoo hoggaanka qabteen haddee isku duruufo un baynu ahay, maynaan aad isu dhaamin. maantana tuulo walba iyo degmo walba oo gobolka Tigray ka tirsan laambi bay leedahay. adeegyadii asaasiga ah oo dhan xilliga waxa weeye way u dhameystireen. marka gacan bidixayn dhaqaale oo ballaaran ayay waaga inagu hayeen. haddaad eegto kaliyaata maaha, waddanka oo dhan markaad eegto dhaqaalaha waddanku iyagu gacanta ugu jiray. shirkadaha ugu waaweyn ee hantida dawladda lagu leexiyo iyaga lahaa, si gaar ah bay u lahaayeen, waliba saraakiishoodii hogaamintooda. waxay gaadheen markii dambe heer elsiyada xataa wax lagu dhoofinayo lagu soo dejinayo hadduusan nin TPLF uusan ama hormood ka ahayn ama uusan qayb ka ahayn inaadan samaysan karin. dhaqdhaqaaq walba oo ganacsi oo imaanaya ama maalgelin dibadda ka imaanaysa haddayna sheer ku lahayn ma soconayn. yani waddankii wuxuu noqday waddan iyagu ay leeyihiin. dhaqaalihii waddanku wuxuu noqday dhaqaale iyaga jeebka ugu jira oo aan nin kale aan nolol u ogolayn. marka laga tago innaga dhaqaalahan ku naaloonno ee mustaqbalka aan rajaynayno inuu nolosheenna iyo aayaheenna iyo jiilasha soo socda uu wax ka bedelayo waa khayraadka shidaalka wey. qaabka ay u maamulayeen ama heshiisyada ay u bixinayeen ama ay ugu dhex milmayeen shirkadaha shidaalka iyada laftigeedu ayaan daro badan bay ahay. ayaan daro aad iyo aad u badan bay ahay. waana siyaasad waxay ahayd maaragtay ujeedooyin ballaaranna ay ka lahaayeen. ujeeddada ugu weynna ay ahayd backagekii aan markii horeba ka hadlayey ee dhaqaalaha, horumarinta, waxbarashada, akhlaaqda, qiyamka lagula dagaalamahayay ee shacabka Soomaalida ka dhanka ah. warbixintaada waxaa ku jirtay inay isirbeegsi wadeen inay dhaqankii ay doonayeen inay maaragtay ishaagay tirtiraan, inay diintii la dagaalamayeen, dabcan waxyaabo badan oo la xiriira. maxaan ku macnayn karnaa, maxay sababtada ujeedada maxay ay ka lahaayeen inay waxyaabaha noocaas ay sameeyaan? ujeedadooda ugu weyn waxa weeye TPLF in ay dhaqan geliyaan nidaamkooda gumaysiga iyo cadaadiska iyo caburinta ku salaysan, isla markaana ay duudsiyaan shacabka Soomaaliyeed xuquuqda ay leeyihiin oo dhan. anu madihi shacabka Soomaaliyeed baa dhibaato loo geystay, shucuubta Itoobiya oo dhan bay u geysanayeen. Oromiyay u geysteen, Amhaaray u geysteen, Canfar bay u geysteen, Hereeri bay u geysteen, Dhabuub bay u geysteen, cid walbay u geysteen. laakiin annagu waxaan leenahay mar walba qowmiyaddii dhibaatada ugu badan loo geystay ayaan nahay, shacabka Soomaaliyeed haddaan nahay xilligii TPLF. quluubtanadana way ku taala. waxaan aaminsanahay marka dhibaatooyinka ay geysanayeen oo wajiyo badan lahaa, ujeeddada ay ka lahaayeen waxay ahayd oo kaliyaata inay waddankan gacan bir ay ku hayaan, waddankan iyaga mooye cid kale inayna madaxa kor u soo qaadin, bahdilka iyo gumaysigana ay kusii maamulaan. taasna way u cuntami weyday shucuubta guud ee Itoobiya, way u cuntami weyday shacabka Soomaaliyeed. maantana cid ka yeelaysay ma jirto, cid alle cid ka yeelaysay ma jirto inay shalay toole
meeshii ay waddanka gaadhsiiyeen haddana gaadhsiiyaan jihadii ay ku wadeen inay haddana ay maaragtay dib ugu celiyaan nina ma yeelayo. isbeddel dhaqaalo oo badan ba hadda waddankeena ka jira, waddooyin badan baa noo socda. waad aragtay waddadan dhagax le hadda ka laabanaysa ilaa dhanaan aadaysa, waddadan baabili ka laabanaysa ee fiiq maraysa ee ilaa iyo maaragtay hoos aadaysa, waddada halkan ka baxaysa ilaa Dirdhaba aadaysa. waddooyin badan oo deegaan ka socdaa jira, waddooyin magaaladan hadda aan joognay caasimadda Jigjiga ka socdaa jira. waxaasoo dhan kaabayaasha dhaqaalaha ee horumarkeena wax kusoo kordhinaya wey. waagii hore khayraadkeennu inta badan ama resourcigeennu gacanteena muusan ku jirin, dad kalea maamulayay. qorshaheenna inagu maynaan maamulayn, saraakiishaa maamulayay. mashruuca iyagu rabaan beritoole inay qaataan bay qorshaha ku darsan jireen, lagulama tartami jirin, iyagoon baana la siin jiray. miisaaniyaddan iyagoon bay dib ugu noqon jirtay, halkanay saf usoo geli jireen. xagga isla xisaabtanka sidee ku hayeen? isla xisaabtanimaba jirinba, wax isla xisaabtama oo waqtigaa iyada a jiray ma jirin. yacnihii annagu waxaan hadda taagannahay institutionisku isbeddel badan bay u baahan yihiin oo de hal mar wax lagu sixi karaa ma jiro. isla xisaabtanku ilaa hadda in la improve gareeyo wuu u baahan yahay. nidaamka dawliga improvement buu u baahan yahay. ma lihin hadda wax walba perfect uu yahay ma lihin, oo wax walba 100% weeye ma lihin. waxaan aaminsanahay jihadii laakiin wax lagu xallin lahaa ee lagu sixi lahaa ee lagu horumarin lahaa hadda inaan raacnay baan hadda aaminsanahay. waxaa kaloo aan aaminsanahay dhaqaalihii la dhacayay ee jeebadaha dad kale oo shisheeye ah galahayay maanta dad Soomaaliyeed buu galaa, ama iyagu ha qalloociyaan ama muxuu ahaayey si kale ha u helaan ama ha fuliyaan, waxay doontaba ha noqoto. laakiin qof Soomaaliya iyo shacab Soomaaliya ayuu dhaqaalahaasi galaya. yani waa horumaraan shalay toole jirin wey. iyadoo aan taa ku xisaabtamayno waxaan kaloon aaminsanahay de wax badan oo shacabka Soomaaliyeed xaq u leeyihiin inay helaan baa ilaa hadda jira. kaalinteena hadda siyaasadeed, kaalinteena dhaqaale, kaalinteena horumarineed ma aha sidii loo baahnaa. wax badan baa inaga maqan. laakiin qaabkan ku raadsan lahayn iyo nidaamkan maaragtay aan ugu kuurgeli lahayn iyo si aan u soo dhacsan lahayn waa arrin Soomaali hadda u taalla wey. laakiin jihadii lagu raadin lahaa in la hayo hadda waan aaminsanahay. waxayna u baahan tahay taasi midnimo iyo wadajir iyo iskaashi iyo maaragtay isdhiirigelin bay u baahan tahay. laakiin in lagu hadla isqabto la isfeenfeento inagu aan isku mashquulo uma baahna. sidaa sheegtay iyadoo aan dabcan sinaanta in maaragtay dadka qowmiyaduhu sinaadaan in adigu dabcan Soomaalidu ay noqoto ay door ku yeelato hoggaanka dalka intaba iyadoo aysan ogolayn, haddana weli waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo meediyaha aan ognahayna warbixino badan dabcan ay ku taageeraan TPLF ku taageerayaan. xaaladda lagu jirana waan ognahay. mustaqbalka markaad eegto danta Soomaalida maxay ku jirtaa? anu waxaan aaminsanahay horta shacabka Soomaaliyeed taariikh ballaaran buu Itoobiya gudaheeda ku leeyahay. taariikhda shacabka Soomaaliyeed ay Itoobiya gudaheeda ku lahaayeen waa mid aan ku xasuusanno cadaadis iyo caburin iyo bahdilid iyo faquuqid iyo xasuuq iyo qixin iyo dil iyo xidhay iyo duudsi. TPLF baan kala kulannay, dhargii baan kala kulannay, boqortooyadii baan kala kulannay. laakiin waxaa ugu daray TPLF. bointigaan marka rabaa waxaa weeye inaan ka hadlo nidaamkii TPLF ee aan hadda ka hadlaynay oo kii ugu daraa ahaa inuu soo noqdo ma rabno. kii dhargigii oo isaguna tacaddi iyo xasuuq iyo bahdil isna waday dadkeenna u geystay iyadana ma rabno. ku ka horreeyey inuu soo noqdona ma rabno. waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed xuquuqdooda inay Itoobiya gudaheeda sida ay u helayaan xuquuqaha qowmiyadaha kale inaan u helo. waxaan rabnaa inaan sinaan iyo cadaalad qowmiyadaha kale kula noolaano. waxaan rabnaa nidaam federalism ah oo ku salaysan qowmi inaan Itoobiya kula noolaano. Itoobiyada aan la noolaan karaayo waxa weeye oo kaliya Itoobiya ku salaysan nidaam federalism ah oo qowmi ah. Itoobiya aan si dimuqraadi ugu noolaan karno. Itoobiya aan lagu maaragtay bahdilaynin. Itoobiya aan xuquuqdanada lagu duudsiyeynin. Itoobiya lahaanshiyaheeda aan ula simannahay dhammaan qowmiyadaha kale oo kale. si loo helo Soomaali midaysan dabcan
oo iminka qaabkaad sheegtay si maaragtay xuquuqdana Soomaalidu u hesho sidee ku iman kartaa markaa Soomaalidu xuquuqdeeda waxay ku heli kartaa kow in horta si dhaba loo fakaro aan cadifad iyo maaragtay isriixriixasho iyo isfaquuqid aan ku salaysnayn. Soomaalidu waxay wax ku heli kartaa oo kaliyaata inay yeelato horta marka koobaad mabaadi asaasi ah oo lagu wada socon karo oo Soomaalinimadu ku ka tahay qofku wuxuu doono ha aaminsanaado laakiin waa inay Soomaalinimadu kaalinta koobaad ugu jirto weey qofkii Soomaalinimada aan ogolayn aan wax ku raadinayn aan ilaashanayn aan dhowrayn in meel loogu soo wada jeesna weey mabaadiida asaasiga lagu wada socon karo waxa kamid ah deegaankeenna iyo xuduudaheena inaan ilaashano nabadgelyada iyo xasiloonida deegaankeenna inaan ka wada shaqeyno xuquuqda deegaanka kan baqan inaga oo midaysan inaan raadsano waan ku kala gadisnaan karaa nidaamka maamul qaabkan hadda anigu u arko inaan wax u maamulo walaalkay oo siyaasadda iga soo horjeeda iga gadisnaan karaa waana wax natural dabiiciya weey adduunkana meel walba ka dhacda laakiin haddana wax guud oo la wada ilaashada baa jira waxa guud intaan dhaafo baan qiyamkii iyo jiritaankii iyo aayihii Soomaalida deegaanka Soomaaliyeed wax dhaawacaya ama sooyaalkii taariikheed ka hor imaanaya oo burburinaya ayaan la imanaya ficiltan darteed iyadu taas waxaan aaminsanahay Soomaalinimo ma wax gadmayana ma marka waxa weeye waxaan qabnaa wada jirka iyo midnimada iyo wada socodka maaragtay loogu baadigoobayo ilaalinta qiyamka guud ee ay ummadani leedahay iyo mabaadiida asaasiga ah waxa aynu ku wada shaqeyn karno inay tahay taa un baan ku gaari karaa yoolka mustaqbalka ee bulshadan ay leedahay hadday noqon lahayd wadanka gudihiisa iyo hadday noqon lahayd muuqaalkeen dhaqaale siyaasadeed jiritaan iyo aayaha ummadeenaba taasay ku jirtaa baan aaminsanahay dhinaca qurba joogta markaan eegno roolka ku yeelan karaan in iyagu naftirkooda ay qayb ka yeeshaan muxuu noqon karaa horta qurba joogtu kaalin mugla bay ku leeyihiin muxuu ahaayay meel deegaan walba dadka dibadaha ku maqan waa dadkii halkan ka tagay weey waa dadkeenu weey waa laga yaabaa de waxoogaa duruuf horumarineed iyo dhaqaale oo dadkan ay dhaamaan inay jirto marka qurba joogtu laba rool boo yeelan karaan roolka koobaad waxa weeye rool positive ah inay wadanka dib u dhiskiisa horumarkiisa xasiloonidiisa si positive ay uga qayb qaataan rool negative way yeelan karaan oo ah yacnihii in waxyaabahan hadda socdi iyo dhalanteedkan iyo siyaasadahan maaragtay dhanka ka jiritaankeen inay ku dhex milmaan laakiin taasi dan uguma jirtaan aaminsanahay iyagana uguma jirto shacabka ay ka tageen u maqnaayeen ee ay soo maalgelinayeen ay maalin walba taageerayeen hooyooyinkoodii walaalahoodii iyo ilmahoodii uguma jirto dani kala gadisnaanshaha xagga afkaartu dee way jiri kartaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay mar walba roolka qurba joogtu inuu noqdo mid xaqaa'iqa dhabta ah ku salaysan mid aan caadifad ku salaysnayn mid isu soo dhaweynaya bulshada midaynaya mid sawirka dhabta ee deegaankeena caalamka baraya mid aan muxuu ahaayay la isku talax tagaynin inuu noqdaan loo baahan yahay mar walbana qurba joogtu waxay mar walba ay wax badan ka bedeli karaan xaqaa'iqa gudaha ka jira anagu marka waxaan leenahay walaalahanaga qurbaha jooga mar walba waa laydin baahan yahay kaalintiina waan u baahannahay wadankanna waa wadankiinii waad ku soo noqon kartaan markaad doontaan inaad wadankiina la xajeclo ballaaran mar walba aad gelisaan ayaa loo baahan yahay laakiin ashkhaas kooban waxa laga yaabaa kooban oo si negative u fikirtaa inay jiraan mar walba kuwaana waxaan isleenahay haddii wacyi la'aan inta badan ay tahay inta badan qofku markuu qurbaha joogo dee xaqiiqda dhabteen inagu ognahay iyagu ma oga
waxaa laga yaabaa in lagu tiirsanaado social mediaha iyo waxa lagu xarxareeqo. waxaa ka fiican qofku inuu u kuurgalo wadciga iyo xaaladda intuunan ama sideska ishaya uunan wax ka sheegin ama isaga laftigiisu uunan tallaabooyin aan markaasi habboonayn u qaadan. marka qurba joogta mar walba anigu waxaan aaminsanahay kaalintoodu waa kaalin loo baahan yahay. inkastoo aan guntii gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay wasiir waxaa rabaa su-aasha ugu dambeysaan ku weydiinayo maxay noqon kartaa aragtidaada ku aadan aada u jeedin kartid tusaale dhinacan markaan eegno TPLF waxaan ognahay inay jiraan social media saambaraha bulshada aan ku aragno dad taageersan amba dabcan qoraalaha ku taageeraan ama afka ku taageeraan social media naftirkooda fariimaha uga gudbiyaano. aragtida noocaasa dadka qaba maxaad fariina ma jirtaa fariin aad u dirayso aragtidaada aad ku cabirayso iyo dabcan mustaqbalka future-ka bulshada ku dhaqan deegaanka Soomaalida mustaqbalka waxay higsanayaan? social mediahu adduunka wuxuu noqday factor weyn oo kusoo kordhay waana kolley muhiim social mediahu laakiin waxaa muhiim ah si wanaagsan oo bulshadan mustaqbalkeeda iyo aayaheeda aan waxba u dhimaynin in social mediaha loo isticmaalo. inta badan dadku social mediaha waayahan dambe waxaad ku arkaysaa waxyaabo badan oo aan munaasab ahayn ama aan jirin maaragtay marin habaabin ah oo lagu faafinayo aad arkaysaa. waxyaabahaasina waxay inta badan keenaan sawir aan sax ahayn in bulshada caalamka loo gudbiyo ama dadka aan xoogaalka ahayn in loo gudbiyo. marka arrinta ayada in laga waantoobo waan sheegi lahaa iyadoo de saxaafadda xor loo yahay qofku aragtidiisa cabiri karo wax dhaleecin karo systemka hadda jira uu maaragtay u dhaliili karo aragtida isaga la kuman ee ku aadan waxa socda uu ka hadli karo. nina social media hadda ma controli karo waana xuquuq asaasi qofku uu leeyahay laakiin waxa uu la diidan yahay waxa weeye in warar been abuurada la fidiyo in muxuu ahaayay warar meel ka dhac ku ah muxuu ahaayay dad gaar ah ama systemka guud meel ka dhac ku ah ama bulshadaba ku ah in la fidiyo. waxa kale oo iyadana la diidan yahay in incitements waxa la yiraahdo kicin bulsho oo markaasi khalkhal gelin karta amniga iyo xasiloonida deegaanka in la sameeyo. waxyaabahaas la diidan yahay laakiin social media isticmaalkiisu waa wax fiican weey. xogaha in lagu kala qaato in dawladda lagu dhaliilo in lagu saxo wixii bulshadu ay u arki weydo inuunan munaasab ahayn ay bulshada ay la wadaagaan dadka kale ee citizenska iyaga laftigooda la xajaalada ka qaba jiritaanka iyo horumarka wadanka. annagu bilaaadmi baan nahay waan khaldami karaa waxbaan hoos mari karaa waxaan annagu maslaxad moodayna laga yaabaa inuu mararka qaarkood tallaabooyin bilaaadmi oo qalad naga yimaado. waxaas oo dhan dadka in muraayada inay naga saxaan loo baahan yahay waa bulshadeenada. marka annagu waan ogol lahay in la saxaan ogol lahay masiirka ummadda wax walba oo dhan inaan uga tanaasulaan ogol lahay inaan kuraasideenada uga tanaasulaan ogol lahay. qofka aan u aragno waxaan bulshada aan hadda u hayno wax ka fiican inuu soo wado ama uu gaarsiin karo inaan muxuu ahaayay isaga u daba fadhiisanaan aan ogol lahay inaanu xilkaan hadda hayno iyo ku wareejinaan ogol lahay. laakiin waa marka qofku uu isagu kursi doon u ahayn laakiin wax kursi ka ballaaran uu raadinayo way. sida caadigaana waxaa jirta qofka wax isaga la siman baa jira wax ka hooseeyaa jira wax ka sareeyana wuu jira. aniga tusaale ahaan haddaad i weydiiso roolka hadda aan leeyahay ee dawladeed iyo awoodaha la ii igmaday inaan qabto sidii loogu talagalay aan u qabto aan xaqsoor ka sameeyo waajibaadkaygii aan guto waa wax iga hooseeya weeyo marka aniga la igula xisaabtami doono. taariikhduna way qoriyo waxaa la odhan hebel waxa iyo waxaas soo kordhiyey hebel dulmigaasuu sameeyey hebel wanaaggaasuu soo kordhiyey waxna waa wax aniga ila siman waxna waa wax iga sarreeya. wax aniga ila siman waxa weeye hadee siyaasiyan dadka ila tartamaya ee rivalka igu ah waa wax anaga nala siman weey waan heshiin karaa
waan kala tanaasuli karnaa laakiin wax naga wada sarreeyaa jira oo kursiga qofka iyo jiritaankiisa maanta meeshuu taagan yahay ka sarreeyaa jira waa aayaha ummadda weeye marka aayaha ummadda annagu diyaar waxaan u nahay wax walba oo aayaha ummadda ku saabsan inaan muxuu ahaayey aan qayb muhiimana aan ka geysano ciddii nagala shaqaynaysana aan kala shaqayno laakiin aysan noqonin kuraasida uun aan kala bedelano wax intaa ka ballaaran oo kursiga ka ballaaran oo aniga iga ballaaran oo naf iyo maalba in loo huro ayaa jira. maxaa talaa iminka bulshada siinaysaa ku daawanaysa? bulshada waxaan siinayaa aan ku dadaalno soomaalinimada aan ilaalino aan ilaashano inta yar maanta horumarka aan haysano amniga iyo xasiloonida deegaankeenna aan ka wada shaqayno waxaa kaloo aan halkan aan bulshada aan ugu dirayaa fariinta mustaqbalkeenu inaga gacanteenu ku jira inagoo Soomaali ah inagoo Soomaali ah unbay tahay inaan go'aan ka gaarno aayaheenna inagoo Soomaaliya oo gacmaha haysanana inaynu wada raadsanno oo aynu ka wada shaqayno oo aynu ka niibkeenno oo aynu muxuu ahaayey isugu tanaasulno oo aynu maaragtay isku kaalmaysanno kaliya toon baynu wax ku gaari karnaa. aad baa mahadsan tahay kaasoo wuxuu ahaa wasiirka xafiiska qorsheynta ee dowladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Sheekh Aadan oo marti noogu ah barnaamijkan gaarka ah aanu ku eegayno xaaladda dalka. aad ayaan kaga mahadcelinaa wasiir inaad barnaamijka hadda la qayb qaadato. thank you so much. mahadsan tahay. dhinaca muuqaalkan quruxda badan waxaa gacan ka geystay waa Saacid Cabdi iyo Shaafi Ismaan. waa aniga ilka casa daawadayaal oo barnaamijka idin la socodsiinayay intaan barnaamijkan mid lamid aan ku kulmi doono dhammaanteen isku doono waxaan idin kaga taginaa sidaas iyo nabadgelyo.